injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID waxa uu sheegay in ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay uu wado qorshayaal siyaasadeed oo dib loogu soo celinayo heshiiskii roadmap-ka ee sanadkii 2012 ka qabsamay Garowe isagoo xusay inuu salka ku hayo himilooyinkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. Siyaasadda maanta ay wato Nicholas Kay ee maanta lagu sameeyo Soomaaliya dib loogu habeenayo waa siyaasad ay lagu sameeyay Garowe roadmap Garowe lagu sameeyay waxaanu salka ku haya himilooyinkii iyo fikradihii Maxamed Siyaad Bar Garowe markii ku shirayaan Soomaaliya ana Somaliland wala diiday 18 gobol laguma heshiin illa kooda haweenada soo jeed way diideen saxaan USC dadka soo jeed shirweyne markii dambe la yiraahdo xamar baa lagu shirayaa odayaasha barnaamijka la urursaday ayaa lagu saxay la marsi taas waa ta keentay in maanta wax Jubaland la ilaa sameeyay taas waa ta keentay inta dad la soo kaxaysay shisheeyaha in dhulkii laga baro dawlad laga dhawaa Jubaland la taas waa ta socota ila dooniyo in dadkii xoog weyn ay qaadato Soomaaliya gobol waanu sheegnay taasi inay tahay laga dagaalamay aan yeelin Somaliland iyo USC dadka taageeri jiray wax dhacaya ma ana buugi Maxamed Siyaad Bar maanta anagoo saaso dalkayga haysana xamro dawladda ka sameeysan tahay USC u badan in la nagdusha laga saaro magalaan saay fikradda Garowe lagu soo abuuray ee xaq darada ee cadaalad darada ee dhulboobka it will never happen. Faysal Cali Waraabe oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay in xisbi ahaan ay madaxweyne Silaaniyo uu baaqayaan inuu Soomaaliland ka qabto doorasho haddana sheegnay dawladda waxaan leenahay doorasho la qabto baarlamaankan la leeyahay wuxuu leeyahay madaxweyne aan wada durksano yaa xanaayeen jarkaaga sarabsan baarlamaan ma ahayn nimanka iska fadhiista meesha ee fashilmay ee dhibaatada dalka aan waxba ka ogeyn yaani madaxweyne adaa nin odayaal tahay xumaan samaan dalkan taariikhda ku raacaysa inta madax ka heed saddex xisbi ayaa talada go'aanka ee doorashooyinku si u dhacayaan waqtiga dhacayaan waa inaga iyo technical wixii ka soo baxay eedahan gudoomiyaha xisbiga UCID u jeediyay Nicholas Kay ayaa imanaya iyadoo uu shalay kulamo la qaatay madaxweynaha Somaliland shirguddoonka baarlamaanka iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.